habeen wanaagsan aadi aadan ugu faraxsanahay caaw in aan xafladaaneyti quruxda badan aan idin kala soo qayb galo hadda waa qol oo ay ka buuxaan dad walaalihii ah dad ehelkeyga ah dad aan aad u jeclahay marka waxay ahayd xaflad aanan gafi karin marka intii reer Puntland ah iyo intii Soomaali weyn oo caaw xafladaaneyd ka soo wada gashay dhamaantiin waan idin salaamayaa waxaan rabaa horta qaas ahaan in aan u salaamo dhalinyaro oo aniga horseyd u ahayd in maanta aan noqdo qofkii ugu horeeyay oo Soomaali ah oo Congress aado wiilal dhalinyaro walaalihii oo xafladaaneyti iyagana horseyd u ahaayeen in ay soo qaban qaabiyaan dhalinyaradaas aan rabay in aan xusana waa walaalkii Ciidruus walaalkii Maxamed Boosaaso walaalkii ama lamaanahayga guhaad ma ogi meeluu ku maqan yahay iyo walaalkii Oorshe habeen dhexdaas waxay igu dhaheen waxaan rabnaa Ilhaan in xaflad aan qaban qaabinayno aad ka soo qayb gashiin hadda waxaan dhahay Puntland dadkii madaxweynaha uu orday waa bateene ma noo kala reebtiin qol ha lagu soo wada xiro kulligood ha tashtaan mid ha ka soo baxo anigana mid aan horay u taageeray mid kale haddana meeshiisa kama hadli kariye see wax u jiraan marka waxay dhaheen Ilhaan markaad adiga tartamaysay waxyaalo badan laakiin kan ugu weyn oo lagugu ximinaayay waxay ahayd inaad tahay qof da'diisa aad u yar tahay asadna meel kasta wuu ka dhisan yahay laakiin halka wax weyn oo lagu ximinaayo waa in uu yahay qof da'yar marka labadiina waxaad tihiin dad og dhibka ay leedahay inaad ahaatid qof kalsooni isku qabo qof og in jagada uu u tartamayo uu u diyaarsan yahay laakiin dadkii ay kugu yasaayaan da'daada kaliya adiga marka hadda waa raysay oo dadka waxaa tusisay in da' aan la isku yasi karin asadna waxaan rajaynaynaa inuu noqdo qofkii raayo oo da' aan lagu yasi karin marka waxaan dhahay bas waa iga gadan tahay waa imaanayaa waa ka hadlayaa meesha 2011kii aan aniga fursad waxaan u helay in Puntland aan tago markii iigu horeysay ay ahayd aabahey oo caaw inta joogo Abnuur wuxuu go'aan ku gaaray in ciyaalkiisoo dhan intii uu nool yahay uu hal mar kaxeeyo uu soo tusiyo dhulkii ay ka imaadeen ay ka soo farcameen si bari ay ugu fududaato iyagana ciyaalkooda inay geeyaan oo aynan meesha marti ku noqon marka aniga waxaan ahay qofkii saddexaad uu fursad u helo inuu kaxeeyo 2011kii xaj ahaan la iigu kaxeeyay Puntland inaan soo booqdo marka Puntland markaan tagay waxaan ku dhahay aabo waxaan rabaa dad in aan soo booqdo oo aan fiiriyo dadka say ku nool yihiin ay say ku sugan yihiin marka wuxuu yiri waxaa jiro organization oo jaamacadaha ka dhisan oo Puntland Student Association la dhahayo dhalinyaro adoo kaleeto waaye oo wax barto marka kuwaas aan ku geeyo bal aan soo fiirino waqti la soo qaado iyaga ka wareyso noloshooda iyo sida ay ku sugan yihiin dhalinyaradaas ay tii markii aan waqti isla qaadanay laba arin ay igala hadleen labada arin ay igala hadleen waxay ahayd in marka koowaad ay yihiin dad hami weyn dad rabo in dadka ay ka dhex muuqdaan dad rabo iyaga inay noqdaan dadkii wax bartay dadkii jaamacadaha ka shaqeynayay
dadkii isbitaaladahooda iyaga doktorooyinka ka ahaa dad iyaga isku fulan oo future-kooda horseed u noqon karo taas waa isku afgaranay oo anigaba taasaan fursad u helay waddankaanaydi Mareykanka aan ku koray midda labaad waxay ahayd in ay dadka meelaha go'aanka iyo laga gaarayo ama dadka dawladda ku jiro ay iyaga iska dhex arkaan marka waxaan ku dhahay taas maxay muhiim idinkugu tahay marka waxay dhaheen Ilhaan Puntland dadka ku nool 70% da'dooda 30 ay ka yar tahay 70% under the age of 31 marka markii la fiiriyo dadka dawladda ku jiro ama madaxweynaha ahaado ama xildhibaan ha ahaado ama ismadeena ha ahaadaan kulligood waa dad da'dooda ay aad u weyn tahay marka waxay dhaheen waxaan rabnaa dad annaga og dhibaatooyinka aan la kulmayno dad dareemi karo hamigeena inta uu la eg yahay dad annaga nala shaqayn karo oo na fahmi karo marka maanta waxaan u malaynayaa in dhalinyarada City oo 70% iyo googo wadanka ka in maanta ay tahay maalintii ugu horeysay ay fursad u heleen inay arkaan qof iyaga oo kaleeta ah oo fursad u leh in uu madaxweyne u noqdo iyaga taasna waxa waay mid lagu farxo waa mid dadka niyadda u dhisayso waa midda oo maanta haddii Facebook aad fiirisid Instagram aad fiirisid Twitter aad fiirisid Snapchat aad fiirisid meel kasta oo dhalinyaro ay ku jiraan waxaa arkaysaa dhalinyaro sawirkiisa wato dhalinyaro magaciisa haayo dhalinyaro aad ugu hami weyn in Asad uu noqdo madaxweynahooda marka isbedelkaasaytii iyo niyad dhisintaasaytii dadka dhalinyarada ah oo Puntland ku nool ay maanta helayaan waa inta kaliya aniga meeshaanaydi caaw i keentay waa inta kaliya aan aad ugu faraxsanahay inaan arko qof dadka niyadoodii iyo qalbigoodii kiciyay inaan arko qof dhalinyaro ah oo kalsooni isku qabo oo kalsooni ku qaba in dadkiisana wax uu ka bedeli karo hadaatiya laga dhawaajiyay in meel libax uu soo galay lo aanan joogeynin laakiin muu malaynayo qofkii intaas dhahay inuu og yahay magaca Asad af Carabi inay tahay libax oo asigii libaaxiiba yahay oo insha Allah hadda markii meelaha uu tago sababta ay dadka already ugu magacaabayaan madaxweynihii yimid ay u dhahayaan ay tahay in ay dareensan yihiin wiil dhalinyaro ah oo meel soo maray maantana meel u socdo inuu yahay marka aadaan ugu faraxsanahay walaalkay Asad in aan horay u soco dadkii dhalinyaradii wadankii ku noolaa niyadaad u dhistay kulligood waa ku istaageen annagana haddii aan nahay dhalinyarada diasporada ku nool annagana niyadaa noo dhistay annagana waa ku garab istaagsannahay marka waxaan rajaynayaa in inta kale aan dhalinyarada ahayn sidii aniga ay ii garab istaageen sida eedaday Sahar oo kaleeta in iyagana ay saas oo kaleeta u garab istaagayaan oo ay u fududeynayaan in dhalinyarada ay helaan qof jid u furo oo tusiyo jidkii suu asiga u maray ee iyagana u mari lahaayeen marka waa mahadsantihiin